asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay meel kastoo aad joogtaan. Waxaan sugnaaba horyaaladii xiisaha badnaa. Hadda waxaa ka dhiman 25 beri. 25ka beri waxaan daawan doonaa 15 game oo xiise gooniya leh. Kulamadaas oo aad iyo aad loogu riyaaqsan yahay sida sanadan la iskugu aadiyay, maadaama naadiyaal waaweyn ay wada ciyaari doonaan. Haddii aan wax ka taataabano kulamadaas la ciyaari doono, Liverpool iyo Manchester United waa ay loolabi doonaan oo kulan saaxiibtinimo ayaa dhex mari doona, kuwaas oo Mareykanka ku ciyaari doona. Isla Arsenal iyo Liverpool waa ciyaari doonaan kulan kale oo xiiso badan, isla Mareykanka ayayna ku ciyaari doonaan. Manchester United iyo Arsenal isla Mareykanka ayay ku ciyaari doonaan kulan kale oo xiiso badan. AC Milan Manchester City ayay la ciyaari doontaa. Barcelona Real Madrid. Barcelona mar kale waxay la ciyaari doontaa Manchester City, taas oo sii qurxinaysa sanadkan kulamada saaxiibtinimada ee la ciyaari doono. oo kale waxay ciyaari doonaa Tottenham iyo Bayern Munich. Tottenham waxay awoodeeda ku jeekimi doontaa Bayern Munich inta uusan bilaaban horyaalka Premier League. Kaaga sii darane 2 kulan ayay la ciyaari doontaa, taas oo ka yeeli doontaa home iyo awayba inay la ciyaari doonto. Awoodeedana halkaa lagu ogaan doono. Ku darso Manchester City iyo Manchester United waxay ciyaari doonaan finalka koobka Community Shield-ka, maadaama koob meesha uu ku jirana waxa uu noqon doonaa kulan kale oo xiiso badan. Haddaba inta uusan Premier League bilaabin, waxaan ka codsanayaa dhammaantiin in aad isoo follow gareysaan oo i gaarsiisaan 1000 ugu yaraan. Muuqaalkan like saar, copy linkigana tiro intaad awoodo, ama ugu yaraan 3 jeer taabo si uu u gaaro asxaab badan ayna isoo follow gareeyaan. Haddaad YouTube-keena naga daawanayso, waan kaaga mahadcelinaynaa. Ku soo biir oo ka mid noqo Taya Sports Fan. Halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa sportska qaybihiisa kala duwan. Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin.